بسم الله الرحمن الرحيم. madaxweyne cali cabdulla saalax madaxweynihii hore dalka yemen oo la dilay 4 Diseembar 2017 isagoo da'diisu tahay 75 jir maarso 21 1942 ayuu ku dhashay tuulada Baytul Ahmar oo hoos timaada deegaanka Sanxaan ee gobolka Sanca waxa uu ka dhashay qoys sabool ah isagoo ku soo barbaaray nolol halgan ku dhishan kadib markii isagoo daayar ay kala tageen waalidiintiisa bilowgii noloshiisa waxa uu ku koobsaday qoysarnimo waxa uu ahaa arjir aan weligiis nasiib u yeelan waxbarasho nidaami ah dhamaadkii kontomeeyadii oo ku suntaneed 1958 ayuu ku biiray ciidamada Yemen ahaana waxa uu jiraa 16 sano kadib waxa uu ka mid noqday sanadkii 1960 dugsiga ciidanka 3 sano kadibna waxa uu ka qayb qaatay kacdoonkii Sebtembar ee Yemen hase ahaatee 1964 waxa uu ku biiray dugsiga lagu barto hubka iyo gawaarida gaashaman si uu ugu diyaar garoobo dagaal si fudud uga qarxa dalka Yemen sanadkii 1970 waxa uu ku dhaawacmay dagaal sokeeye oo Yemen ka dilaacay loona kala sabtay laba dhinac oo dhinacyada mid ka mid ah ay taageerisay dowladda Sacuudiga dagaalkaasi waxa uu ka qayb qaatay afganka military balse sanadkii 1975 ayaa loo magacaabay taliyaha military ee magaalada Taziic taas oo ku kasbaday sumcad ballaaran waxa uu ku matalay dowladdii la oran jiray Jamhuuriyadda Carabeed ee Yemen fagaaraha caalamka isla madaxweynihii dowladdaasi Ibrahim Hamadi iyo walaalkiisa ayaa sababtaas loogu shirqoolay 11 Oktoobar sanadkii 1977 ku-xigeenkiisii Ahmed Al-Gashimi ayaa xilka la wareegay kaasoo isna muddo ka yar hal sano lagu shirqoolay xafiiskiisa kadib markii lagu tuhmay inuu ka dambeeyay dilkii madaxweynihii isaga ka horeeyay Cali Cabdulla Saalax oo markaas xubin firfircoon ka ahaa golaha sare ee dowladda ayaa qabtay hogaankii Yementii la oran jiray Jamhuuriyadda Carabta ee Yemen Agoosto 1978 sanad kadib oo ku beegneed 1979 ayaa fashilmay afgambi xilka loogu tuurabay Cali Cabdulla Saalax wixii waqtigaasi ka dambeeyay waxa gabadsaday ehladii iyo intii aqoonta u saaxiibka ahayd bishii May sanadkii 1990 wuxuu ku guuleystay inuu la heshiiyo madaxweynihii dowladda iyadoo la oran jiray Jamhuuriyadda Yemen ee Dimuqraadiga Shacabka waxaa madaxweynuhu loo calaam saaray Cali Cabdulla Saalax halka Cali Salim Al-Bayd oo isna ka ah dhanka kale madaxweyne laga dhigay madaxweyne ku-xigeen inkastoo uu khilaaf laba dhinac marka la dhaxmaray iyo dagaal faraha loogu gubtay oo dhiig badan ku daatay oo dalka Yemen mar kale ka dhigay mid u qaybsan laba dhinac koonfur iyo waqooyi waqooyiga waxaa hogaaminayay Cali Cabdulla Saalax halka koonfurta uu hogaaminayay Cali Salim dhamaadkii dagaalkani kadib 1999 waxa uu si doorasho madax banaan ugu guuleystay xilka madaxweyne ee dalka oo dhan Cali Cabdulla Saalax guushaasi waxay u ahayd Cali Cabdulla Saalax mid taariikhi ah hase ahaatee ma aysan dhaxalsin deganaan siyaasadeed iyo kursi raaxo ah waxaa ku furmay mucaarado aad u xoogan waqooyiga waxaa gadood ka waday xoutiyiinta koonfurtana waxaa ka kacay qolyo leh midowgii waxa uu nabaal mariyay qoondadii aan ku lahayn dalka halka ay birta soofaha ka dayn dhanka kale kooxda Al-Qaacida qaybtooda jasiiradda Carabta oo awood muuqata ku lahayd dalka Yemen madaxweyne Saalax dhankiisa isna wuxuu daaqada gacanta saaxiibtinimo uga furay reer galbeedka oo ugu horeeyo dalka Mareykanka taasoo Yemen ka dhigtay halkay Al-Qaacida u arkeen fursad u furan jihaadka Cali Cabdulla Saalax laacay guuga Carbeed waxa uu galay liiskii hogaamiyaashii Carbeed ee jilbaha u dhigtay kacdoonkii shacabka inkastoo markii dambe uu ogolaaday isku day nabadeed ee wadeen dowladihii qaliijka hase ahaatee arrintaasi waxay faraha ka baxday Juun 2011 oo ugu dambeyn sababtay dhaawac ka soo gaaray isagoo ku sugan masaajid ku dhex yaala qasriga madaxtooyada 9 bilood kadib markii dhaawacii Sacuudiga lagu soo daweeyay waxaa bilowday habkii loogu wareejin lahaa xukunka waxaana bishii Febraayo 2012 loo dhiibay Rabbi Mansuur Al-Hadi madaxweynaha hadda ee sharciga ee dalka Yemen wareejinta xukunka kadib waxa uu noqday Cali Cabdulla Saalax laacibka la maareeya siyaasadda dalka Yemen waxaana garabkiisa noqday xoutiyiintii shalay mucaaraday mar kale wuxuu khilaaf xoogan soo dhexgalay xoutiyiinta iyo Cali Cabdulla Saalax iyagoo ku eedeeyay
inuu heshiis hoose la galay dowladda Sacuudiga. Wixii intaasi ka dambeeyay waxaa bilaabmay cambaareen laba dhinac isku marinaya hawada. Hogaamiyihii Xuuthiyiinta Cabdimalik al-Xuuthi ayaa ku dhawaaqay inaysan wax natiijo ah kasoo baxaynin heshiis walba ay la galeen cadowgooda. Hadalkaasi waxaa ka warceliyay Cali Cabdallah Saalax oo dhankiisa sheegay inuu soo afjarayo wadaagii uu la lahaa Xuuthiyiinta isla markaasna ku bedelanaya bog cusub uu la furan doono isbahaysiga Sacuudiga. Isbahaysiga hogaamiyihii Sacuudiga ayaa soo dhaweeyay inay wadahadal la qaataan Cali Cabdallah Saalax, balse Xuuthiyiinta u arkay inuu madaxa ka hayo kuna ciyaarayo ayaa weerar ku ekeeyay badanyo uu la socday Cali Cabdallah Saalax iyagoo halkaasi ku dilay. Waxayna guul taariikhi ah ku tilmaameen soo afjaristii cimrigiisa 75 sano kadib. Alla ka sokow.